iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay soo baxayeen oo warar sheegaya in shaqo joojin lagu sameeyay 23 ka mid ah garsoorayaasha gobolka Banaadir ayaa haddana waxaa soo baxaya walaac xooggan oo laga muujinayo qaabka loo maray ruqsadda lagu sameeyay garsoorayaashaasi. xubnaha guddiga garsoorka gobolka Banaadir ee shaqada laga eriyay oo maanta ku kulmay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in waddo aan sax ahayn loo maray in laga ruqseeyo shaqada garsoorka gobolka, taasi oo ay ku tilmaameen in ay tahay mid cadaalad darro ah, sharciga iyo dastuurka dalkana uusan waafaqsanayn sida ay sheegeen. Dr. Cabduqaadir Maxamed Cosoble oo ah gudoomiyaha maxkamadda degmada Hiliwaa ee gobolka Banaadir iyo Dr. Maxamuud Caraale Maxamuud oo ah gudoomiyaha maxkamadda degmada Wadajir oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay ujeedka ay isugu yimaadeen, waxayna madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ka codsadeen in ay arrintan faragelin ku sameeyaan sida ugu dhaqsiyaha badan. waxaa la soo gaaray bariyahan oo la sheegay in garsoorayaashaasi la rabo in la ruqseeyo si loo duusiyo xuquuqdii ay lahaayeen oo dastuurka iyo xeer nidaamka uu siiyay. haddii aan ka soo qaado garsoorayaashaasi waxay soo mareen dhibaato aad u fara badan, qarax, dil, waxa weeye qof aan la socon ma jirto maanta. aniga kula hadlaya oo magacayga la yiraahdo Cabduqaadir Maxamed Cosoble, qaraxii 2013 ka dhacay maxkamadda gobolka Banaadir 4 jeer ayaa iiga jabtay, 3 biloodna waxa ku jira isbitaalka Madiina. waxaan u dhaawacmay oo u jajabay waa qarankii aan abaalmarinta ka sugayay maanta wuxuu abaalmarin iiga dhigay in shaqada ka fadhiisa la yiraahdo aniga iyo nimanka saaxiibadaya, taasoo aan qaban runtii. sidaa darteed waxaan madaxweynaha dalka oo aanu jecelnahay mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo, ra'iisul wasaaraha, gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi, gudoomiyaha aqalka hoose maxamed mursal cabdiraxmaan u gudbinaynaa cabasho aan ka cabanayno sharci darrada nagu dhacday oo ah mid aan la qaban. waxaa hadda warkiiyo gunaanadka oo hadda jooga oo dhibaatada aan ka cabaynayno ay tahay 23 garsoor oo inteena hadda aan ka fadhino, inta kalena kolba dhibkaas ay nala qabaan, cidaana la qabin oo ku qanacsan iyadaa sheegi doontee. arrintaas ayaan cabashanahay, inaan waxaan aaminsanahay inaan loo soo marin sifo sharci. waana la ruqsay karaa, qalad way geli kartaa binu aadanaan nahay, laakiin sifo sharciya sharciga dalka u dhigan nolol soo saarin iyo qaanuunka maamulka garsoorka 1962 loo cudeeyay oo xeerka nidaamka uu garsoorku ku qoray, dastuurkana ma waafaqsan. sidaa darteeda maxaa qabaan garsoore ma dalacsii kari, ma qori kari, ma bedeli kari, ma anshax mari kari. sidaa darteeda waxaan leenahay gudoomiyaha maxkamadda sare hadduu arrintaas ku kacay, aniguna garsoorana asaguna garsoore, hadduuna guddi adeeg ku jirin, gole adeeg oo ku jirin wuxuu iga bedelayaa male. marka taas waxaan u cuskanaa sharci darra inay tahay. waxaan haddana u soo daadegaa yaa saxiixa warqadan. waxaa la yidhi inkastoo layga qarsho madaxweynaha saxiix, madaxweynuhu nama yaqaanayaa u gudbiya waa asaga. arrintaas sharci darra ahaan anagu dhaliil ka qabnaa. Maxamed Cali Weheliye, Universal TV, magaalada Muqdisho.